waa maxay beenta? Beentu waa sheegidda war khilaafsan sida uu yahay, sida aad tidhaa waxa waan qabtay adigoo aan qaban. Beentu waa xaaraan, diinteennu xaaraantinimaysay kaftan iyo dhab, waana dhaqan xun oo ceebeysan oo cidhib xumo iyo ciqaab ay ka dhalato, ilaa xaalado gaar ah mooyaane. Calaamadaha beenta lagu garto iyo kuwa runta lagu yaqaanay oo dadka beenta sheega ay ku dhuntaan. Haddii aad qof weydiiso su'aal uu kuu jawaabo isagoo si kalsooni labadaada indhood u eegaya, waxaa laga yaabaa in markaaba u fahanto inuu run sheegayo. Laakiin cilmi-baarayaashii waxa ay iminka leeyihiin in indhahaaga oo qofka soo abbaara ayba ka mid tahay calaamadaha muujinaya inuu qofka been sheegayo. Cilmi-baarayaal ka tirsan jaamacadda Michigan ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in fikirka muddo dheer dadku aaminsanaayeen ee ah in dhaqdhaqaaqa si kedis ah uu qofka ugu dhacaa, sida libiqsiga badan, gacmaha oo mar kaliya kor u qaado iyo wixii lamid ah, ay muujinayso inuu been sheegayo. Laakiin markii xeeladayaashii ay daraasad ku sameeyeen 120 fiidiyow oo laga soo duubo dambiilayaal maxkamad dacwad fal-dambiyeed ay ka qaadayso, inay ogaadeen calaamado aan laga filayn ay sameynayaan dambiilayaashii kuwooda beenta sheegaya. Xeeladayaasha ayaa waxay u arkeen inay dadka beenta sheegaya ay indhaha aad u wareejiyaan, iskuna dayaan inay dadka tusaan isku kalsoonaan badan, iyaga oo tusaale ahaan si caadi ah oo kalsooni ka muuqata ay u eegayaan indhaha cidda wax weydiinayso, taasoo xitaa ee kuwa runta sheega ay ka xariifsan yihiin. Hab-dhaqanka kale ee cilmi-baarayaasha dadka beenta sheega ay ku arkeen waxaa ka mid ah inay wejiga ururiyaan sida ruux aad u cadhaysan oo kale inay sameeyaan, iyo mararka qaarkood oo hadalla aan la fahmin ay ku hadlaan, wararka qaarkoodna aan meelaha ku habboonayn dhigaan. Waxaana intaas dheeraad ah, xarakaad kala duwan ay sameeyaan, madaxa ay dhaqaajiyaan, sunniyaha, gacmaha iyo wixii lamid ah.